kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona dowladda Kenya oo bilaabaysa howlgalla ka dhan ah ajaanibta ka timid waddanka Pakistan. Mareykanka oo ansixiyay xeer lagu taageerayo dowladda Liibiya. muxuu Rooble ka yiri doorashadii lagu soo gabagabeeyay Afisyoone. daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan. dowladda Kenya ayaa amartay in la soo xiro ajaanibta sharci darrada dalka ku jooga kuwaasi oo ka yimid dalka Pakistan. muwaadiniin badan oo u dhashay dalka Pakistan ayaa soo galay Kenya kuwaasi oo isku kala qaybiyay ismaamullada Nairobi, Machakos iyo Kajiado. xukuumadda dalka Kenya ayaa sheegtay in dadka ka soo jeeda Pakistan ay u sii socdaan dalka Sacuudi Carabiga iyadoona doonaya inay kaga gudbaan dalka Kenya. xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Krianjo Kipucho ayaa sheegay in tirada dadka ajaanibta ah ee ka yimid Pakistan ay aad u badan yihiin kuwaasi oo u sheegay in walaac badani ay abuurtay. waxa uu sheegay in ay dowladda bilaabi doonto howlgallo degdeg ah oo lagu soo qabanayo Pakistaniyiinta sharci darrada dalka ku jooga. Dr. Kipucho ayaa intaasi ku daray in ay jirto khatar sare oo ajaanibta ku faafin karta caabuqa COVID-19. horey waxay dowladda Kenya u sheegtay in ay xadidi doonto tirada soogalootiga ah ee dalka ugu sii gudbaya wadamada kale. haatana golaha Mareykanka ayaa ansixiyay hindisa sharciyeed xal loogu raadinayo faragelinta dibadda ee ka dhanka ah dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee waddanka Liibiya. waxay tani micnaheedu tahay in xanibaad la saari karo cid kasta oo garab siinayso dhinacyada isku haya Liibiya. waxaa hindisa sharciyeedkan codkooda ku taageeray 386 wakiilo ah halka ay ka soo horjeesteen 35. ujeedada laga leeyahay xeerka ayaa lagu sheegay in waddanka Liibiya lagu daabulo xasilooni buuxda. waxaana golaha horgeeyay Ted Duj oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Joy Wilson oo jamhuuri ah. tani ayaa ku soo beegmaysa hal toddobaad kadib markii baarlamaanka Liibiya uu fadhigiisu yahay dhanka bari oo ansixiyay mooshin kalsoonida lagala laabanayo dowladdii lagu midaysan yahay ee Tripoli. waxaa xukuumaddaasi si kumeel gaar ah u hogaaminayay Ra'iisul Wasaare Cabdixamiid Dibebe. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa war ka soo saaray doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee aqalka sare taasi oo maanta lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Muqdisho. ugu horeyn Rooble ayaa fariin u diray senatarada ugu dambeeyay ee maanta lagu doortay tendada Afisyoone oo ku dhex taalla xerada Xalane. waxaan hambalyo u dirayaa mudanayaasha maanta la doortay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ku matalaya Somaliland ayuu yiri wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Rooble ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ku faraxsan yahay in la soo gabagabeeyay doorashada Somaliland ee aqalka sare oo muddo ka taagnaa khilaaf xooggan. waan ku faraxsanahay in doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi ku soo idlaatay guul ayuu mar kale qoraalkaasi ku yiri Maxamed Xuseen Rooble. ugu dambeyn wuxuu bogaadiyay ergadii ka qayb gashay doorashada iyo sidoo kale guddigii maamulayay doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee Somaliland. waxaan ambaliyo ammaan u jeedinayaa ergooyinkii wax doortay iyo guddiga doorashada ee sida hufan ee xilkasnimada leh doorashada u maamulo ayuu raaciyay. hadalka Rooble ayaa ku soo aaday iyada oo maanta la dhameystiray doorashadii 11 xubnood ee Somaliland ku leedahay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalka iyo cadaafaha caalamka aan idinkaga hanay maanta. wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray aniga Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.